si uu diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa u rajeeyay dadka dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkan arxandarada ah inuu alle u boogadhayo sida uu yiri, isagoona xukuumadda federaalka Soomaaliya ku jiheeyay in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso dadka ay culus tahay xaaladooda caafimaad. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. weerarkan argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadawga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dadkeena, ayuu yiraahday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu faray hay'adaha ammaanka heer federaal ee ku sugan Jubbaland iyo kuwa heer dowlad goboleed in ay sare u qaadaan feejignaantooda oo ay sugaan amniga kana hortagaan falalka bahalnimada ah ee ay xarakada al-shabaab isla markaana ay ku doonayaan in ay ku waxyeeleeyaan amniga Jubbaland, ayuu yiri madaxweynaha. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay bulshada Jubbaland in ay xoojiyaan midnimada iyo wadajirkooda siina joogteeyaan la shaqaynta laamaha ammaanka si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaanada oo ay ku soo food leedahay doorashada madaxtinimo ee Jubbaland.